hooyo daahirow dadaal babanku wada danta hayda ilaaliyo daacad noogu shaqee dalkuna waa keenna duugiisa sii hantiya dadaal yeesho danteenna oo see gocle subaxnimadii hore saaka waxaa fagaaraha hore ee airportka Cigaal International Airport isugu soo baxay boqolaal ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa oo isugu jira ardayda jaamacadaha, ardayda iskoolada, bahda isboortiga, ururada dhalinyarada iyo dadweyne kale oo u tiro badan oo safaf dhaadheer u galay sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen wafdi ballaaran oo hogaaminayo gudoomiyaha hay'adda gargaarka caalamiga ah Alfa Trust Daahir Cali Kulmiye iyo agaasimaha guud ee hay'addaasi Cabdisalaan Muumin عنايدنا قيب لحالة كقاطع تأكلين تشعب كرير سومالي لأن يكون رغم جود هم بسومالي لأن يدون وحيابها هيدا لقوا حسستوا أي قيب كتاعي أباري حوجنا سندي لبض كون يلحي تومانك يكون في السومالي لأن واي جرمد حوجن كجيستين أردنا عجرجار كا قيبت في اي بي ذا ايربورت كعيال انترناشنال ايربورت waxaa ku qaabile wafdigani wasiir ku xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland madaxa borotokoolka madaxtooyada iyo agaasimaha guud ee guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland waxaana ugu horeyn halkaasi hadallo mahadnaq iyo soo dhaweyn ka soo jeediyay wasiir ku xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Sahal Maxamed la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland Cabdiwaxid Cabdilqaadir Cabdiraxmaan agaasimaha guud ee guddiga qandaraasyada Soomaaliland محمد شبرتي waxaan leenahay walaalaheena inoo yimi ku soo dhawaada Soomaaliland magaalo madaxdeeda Hargeysa aad baanu idinku soo dhaweynaynaa maanta inaad mar labaad ku soo noqoteen magaalo madaxdeeda Hargeysa si aad hawliyaad hore ugu wadeen u wadaan ummadana wixii idinka tabarteena aad u qabataan وهايد عالمية أو د إنجلند فدقوا يا UK لأن سود هذا ودلكني هذه أدوان يكون بعد عليا هايد وين فدقوا يا لندن ألفا تراس أو أي مركي وجوه رئيسي أي سنهين إن السوماليلاند وحقق بطو عبارها لابد يكون اللحية تمكي الطبيعة تمكي سيرجي وجوه رئيسيين وحقق بتين ما أنت نود ديارة ضدك عباره ساميين inay mar kale ka qabato oo had iyo jeer gargaar la gargaar taagan waxaan leenahay Cabdisalaan iyo gudoomiyaha Kulmiye iyo agaasimaha Alfa Trust waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba soo dhawaada runtii maanta waxaanu halkan airportka caalamiga ah ee Cigaal International Airport ee Hargeysa aan ku soo dhaweynaynaa mas'uuliyiinta iyo madaxda hay'adda gargaarka caalamiga ah ee Alfa Trust oo uu ka marayo gudoomiyaheedii Daahir Cali Kulmiye iyo agaasimaha guud Mr. Cabdisalaan runtii soo dhaweynta halkan aan maanta u taaganahay waxay ka marxaati kacaysaa waxay hore dalkan iyo dadkan u galiyeen ee uga qabteen dhankiisa waxa isaguna halkaasi hadallo mahadnaq ka soo jeediyay gudoomiyaha guud ee hay'adda Alfa Trust Daahir Cali Kulmiye uga mahadnaqay xukuumadda Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland sida aysan ugu kala hadhin soo dhaweyntan ballaaran ay ku maamuusayaan maanta aniga ku hadlaya ururka Alfa Trust ee dhammaan shaqaalahooda sharaf ayay noo tahay in wafdisan oo ballaaran ay nagu soo dhaweeyaan Soomaaliland magaalada Hargeysa Cigaal International Airport waxaan leenahay aad iyo aad ay u maasantihiin waxaad tihiin dadkii maarkino aad sharafta lahaay aan ka sugaynay welcome taas waa ka xunnahay maadaama diyaarada xogaa soo raagtay cadceedan ay kulushahay sida isku xilqaanteen wallahi anaga ku hadlay magaca Alfa Trust aad iyo aad bayin noo dhiirigelisay waxa aad muujiseen waa magaca Soomaaliland iyo sharafta aad leedihiin intaasi kadib waxa wafdigani ay u soo gudbeen fagaaro hore airportka halkaas oo ay ku sugayeen boqolaal ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa waxaan halkaasi hadallo dareena farxadi ku dheehan ka soo jeediyay qaar ka mid ah bulshooyintii ka qayb qaadanaysa soo dhaweynta wafdigani calanka taabo ila tashka ka marido Cabdi Casiis cod bahan oo yeeshegaya oo ya daahirow dadaal babanku wada
aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta aan halkan kaga soo qayb galno soo dhaweynta hay'adda ama samafalka Alpha Trust iyo waliba gudoomiyaheeda aan jecelahay inuu yahay soo dhawo baan ku leenahay dalkaaga insha Allah waxaan rajaynaynaa sida wax ugu qabato dalkaaga mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad bakani waa dalkaaga ku soo dhawo baan ku leenahay waxa ku sugaya masaakiintii aad caawin jirteen qaybta lixaad kale ka qaadateen dhaxamihii jiray maxay toolay sida fiican uga qayb qaadateen inaad maxay toolay caawisaan marka waxaan leenahay soo dhawaada inta ay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliland wafdigan ka socda hay'adda Alpha Trust ayaa waxa ay gaari doonaan deegaanada Soomaaliland iyagoo u kuurgali doona xaaladda ay ku sugan yihiin dadka danyarta ah ku dhaqan Soomaaliland Najiib Cabdiwali Cabdixiis magaalada Hargeysa